taariikhda wax yar oo kooban haweenku wixii ay hore u soo mareen inaan ka taabto 1952 waxaa la sameeyay Association for Somali Women Association oo ahayd laan ka mid ah SYL oo ay ka madax ahaayeen Raaxa Ayaale iyo Xaliimo Godane dadaal badan oo haweenku ay sameeyeen kadib waxa 1959 shiraan caadi ahayn ay SYL ku doorteen inay ka noqoto golaha dhexe Raaxa Ayaale dad taariikhda ayaga faraduuban baa jooga oo Cureeja ay ka mid tahay iyo gabdhaha kale jooga waxay ahayd dadaal aad u fara badan oo ay haweenku ay maxay ahayd ay soo sameeyeen oo haweenka aynu wada xasuusano Xaawo Jibriil oo Cureeja hooyadeed ay Allah naxariisto Timiro Cukaash iyo dumar badan oo kale oo dhibaato gaadhay dagaal ay galeen oo ay ragga garab taagnaayeen inkastoo abaalkoodii loo gudin sidii ay u dagaalameen oo markasta loo arkayay dad taageerayaal ee loo arkaynin jaalayaal dagaalka ka mid ah waxa iyana xusid mudan in markii u horeysay ee haween ay codayn loo ogolaado ay ahayd 1958 markii ay dawladda u horeysay ee Soomaaliya dhalatay dawladda Cabdullaahi Ciise kuwii ka horeeyay aan loo ogolaan jirin sida dawladda 54 iyo 56 ee jinabigu madaxda ka ahaayeen waxa iyana jirtay inay Xaawo Cawaale Abtidoon Xaawo Yare ay ceelbuur iska soo taagtay 1969 waxa kaloo aynu wada ognahay in dawladda kacanku ay door weyn ay haweenka siisay ay aad kor u qaaday markana soo qaaday Cureeja magaceeda iyada ka mid ahayd dadkii nagala joogay dawladdaas wasiiradii ka soo galay haddaan soo noqdo mawduuca aniga la siiyay oo ah roolka haweenka baarlamaanka roolka muhiimadda baarlamaanku u leeyahay haweenka horta dalalka burburay sida dalkeena door weyn ayay ka qaataan horumarkooda markay baarlamaanka haweenku soo galaan ama ka mid noqdaan waxay soo fadhiistaan miiska talada waxay wax ka go'aamiyaan arrimaha bulshada waxay ka go'aamiyaan shuruucda iyo constitutionka iyo xeerarka iyagoo markaa ra'yigooda ka dhiibanaya waxaan soo dhawaynaynaa Xaaji Zahra aad u wanaagsan doorka ay ka qaataan waxa example ah Rwanda oo kale hadda waynu ognahay Rwanda 65 golaha wasiirada waa haween waa baarlamaanka waa haween 68 waa baarlamaanka waa haween wuxuu noqday wadanka Afrika ugu horeeya xagga dhaqaale korinta iyo wuxuu bas aad iyo aad tobanka dala adduunka ugu horeeya 7 Afrika dhaqaalaha koray laakiin Rwanda kowka ah waayo meel kasta muhiim ah gabadh baa loo dhiibay madaxweynahaas wuxuu gaaray go'aan inuu dalka haweenka ku hormariyo waxay haweenku iska saaraan mas'uuliyad in wax walba qoyska hadduu yahay iyaday ummadda ay tahayba inay ku hagaan mas'uuliyad iyo maxay ahayd fakar wanaagsan waxay haweenku badi leeyihiin aragti fog oo ay hawsha ay mas'uulka ka yihiin ay ka eegaan dhan walba ay u rogrogaan iyagoon degdegin waxay u dhabar adeegaan oo xil iska saaraan hawlaha ay gacanta ku hayaan horumarkooda iyo hufnaantoodaba waxay u fiirsadaan goldololooyinka hadday tahay sharci xeer ama hawl kasta oo loo dhiibo haweenku way ku yar yihiin kuwa musuqmaasuq ah sida awgeed haddii ay baarlamaanka Soomaaliyeed soo galaan haween badani inta ku jirta ka badani waxaa qabsoomi kara hawlo badan waxay soo hortaagi karaan waxyaalo badan oo mashruuc la qaldaayo ama mashaariic la galaayo oo si degdeg oo fudud oo aan sax ahayn loo galaayo sidee haddaba lagu gali karaa oo si sahlan haweenku fursadahaas ay ku heli karaan kow horta waa in constitutionka lagu qoro kootada
annaga hadda waa ku guulaysan weynay waa xeer gaara loo soo saaray waxaan xasuustaan waxaan ka mid ahaa guddigii hore ee baarlamaankii sagaalaad guddiga constitutionka anigii Maryam Cariif iyo Bibi baa ahayn Maryam way naga xanuunsatay way maqnayd Bibina maalintaas ay xanuunsatay aniga markaa joogay waxaan joognay Uganda laba cisho waxaanu ka keligay 10 nin ka doodayna kootada in lagu daro dumarka way iga adkaadeen haddii halkaa dhowr hablood fadhii lahaayeen igama adkaadeen waxay waa aragtay waan marsiin kari lahayn waa in sharciga doorashada lagu qoro sida Suudaan oo kale sharciga doorashada ku qoran tahay kootada dumarku waa in sharciyada xisbiyada lagu qoro sida South Africa iyo Mozambique oo kale noocyada doorashada haddaan u tago dumarku markaasi ay maaragtay u fahmaan noocyada doorashada ee caalamka horta waa 12 nooc ee adduunka ka jira inagu hadii jeer waxaan maqalnaa qof iyo hal qof iyo hal cod ma dhici karto ma la samayn karo dadkii lama tirinin waxaasoo dhan waa sax laakiin hal qof iyo hal cod oo universal suffrage la yidhaahdo oo meel walba la gaadho waxaas laga samayn karaa oo keliya dalalka nabadda ah dalalka dagaaladu ka dhaceen waa loo fakaray nooc ka mid ah ayaa la sameeyey oo qofkii xor u yahay codkiisa laakiin aan la gaari karin meelaha aan la gaari karin aan lagu talagelin ee loo gaadhsiiyo meelaha suuragalka ah oo maxay haytay qofku isagoo xor u codkiisa ku wax qof iyo cod yani qofku isaga kaligiis codkiisa ku ridanaya dalalka Afghanistan dalka Iraq Suuriya kuwaas oo dhan Liberia doorashada noocaas laga qabtaa inagu marka Soomaaliya haddaan nahay uma baahnin tala leeyahay dadkii lama tirin census lama samaynin tirakoob waxba kama jiraan ka dawladaha dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay baa inaga noocaas inaga inoo abuuray waana kii kolkii hore baarlamaanka laga soo ansixiyay ee ahaa PR-ka markii dambe waa la diiday nidaamka PR-ka xisbiyada tooska u tartamayaan weeye isla markaana waxaa tartamaya xisbiyada kaliya dumarku markaa xisbiyadaas ay galayaan sidaas aan xisbiyada loogu codanaya xisbiga adkaada ayaa markaa maxay ahayd dawladda dhalinaya nidaamka doorashada dabdan wuxuu ku baysgaraysay 4.5 waa nidaamka inaga reebay ummadihii adduunkeenu la tartami lahayn oo ina qaybiyay qabaayilkiina isku diray waa nidaam u dan ah dal aan dalkan inala lahayn laakiin inaga haysta waxaa haddaba baarlamaanku ansixiyay dabayaaqadii 2019 doorasho kale oo la yidhaahdo majoritarian oo 4.5 ku dhex jiro kii horena waa la iska dhigay dowlad badan baa ka dhacay laakiin sidii baan ku ansixinay kaasoo kaba sii daran kii tooska ahaa ee doorashada dadbanaha nidaamkaasi wuxuu sheegayaa kursiga waxaa iskale jifo waxaana u keenaya xisbi baa qofka keenaya waxaana u codaynaya cid kasta waxaana la geynayaa kursigaa deegaan doorasho hadda waa maqasheen in dad badani ay rabaan inay kursiga qaataan iyagoo weli doorashadii galin oo aan doorashadiiba jirin weli ayaa qofkii kursigiisii rabaa inuu meel geysto si isagu leeyahay dhibaatooyinkaasaa ka mid ah dhibaatooyinka u dhaliyo sharcigaasi haddii masalan xisbig baa la yidhi waa keenaya qofka haddii xisbi qof keeno oo dawlad odaygii dhaqankee reerkaa la yidhi kursigaa len uu yidhahdo kaa ma rabo sidee loo kala saarayaa weeye ma odaygaa xaq le mise xisbiga qofku ma odaygu daacad u yahay mise xisbigu u yahay horta waa nidaam noocaasa noqday markaa nasiib daro kaasaa loo codeeyay kaasaa madaxweynuhu hadda saxeexay kaasaa maxay ahayd toy aqalka sare soo saxeexeen kaasaana lagu qasban yahay haddaan maxkamaddii la geeyey aanay wax ka bedelin wuxuuse dhaama mar walba isagu ka 4.5 keligiisa doorashada ee gabdhuhu aanay jaanis lahaynba maxaa u dana dalka iyo haweenka halkaa waxaa ku taalla halkudhig doorasho dadban dalka iyo dumarkaba dan uma aha halkudhiggaa waxaa samaysay cureeji waa hadal aad iyo aad dhimo weyn u leh taariikh badanna jiri doona
waxaa inoo dana inaynu isku duubnaano haweeno, waxaa inoo dana oo dalkeena iyo dhalaankeena iyo mustaqbalkeena lagu dana inaan inagu isku duubnaano, waayo ragga waa ka badan nahay. maanta haweenku waxay isku raacsan yihiin no more 4.5 waa xaqiiq, baa la isku wada raacay meel kastoo la joogo, civil society, axsaabta, intaasoo awooda hadday isu tagaan laynaguma qasbi karo inaynu 4.5 qaadano. waa inaan ku dadaalno inaynu xisbiyada galno si aynu baarlamaanka iyo aqalka sareba aynu usoo buuxino oo aynu cod ugu yeelano go-aamada la iska gaadhayo inagoo joogno oo dadkiina ka badan. inaynu soo saarno haween badan oo baarlamaanka gala si dalku inoogu dego oo inoogu xasilo oo aynu horumar gaadhsiino. xaqiiqdu raggu ma gaadhsiin karaan halka haweenku gaadhsiin karaan haddii ay hay-adaha dhaqaalaha, kuwa amniga, sharci dejinta iyo kuwa la midka ah sida kuwa infrastructure-ka oo kale ay haween. Soomaaliya waa dalka maanta adduunka kuwa ugu qanisan, dadku ma rumaysan karaan maadaamaynu tiro yar nahay, maadaamaynu leenahay dhaqaale aanay khaliijka oo kale haddaad saddexda ugu waaweyn Qatar iyo Abu Dhabi iyo Sacuudiga isku darto batrool kaliya leeyihin ama gaas kaba sii go-aya. innaga ilaa waxay nagu banaystay batrool ka badankooda, kalluunkii oo ka badan adduunkoo dhanna ku filan, oo hadda ilaa hadda la boobo laakiin weli aan ka dhammaanayn muddadan dhow. waxaynu leenahay beero, webiyo dhulka socda iyo dhul weyn oo la beeri karo oo maanta food security adduunka cuntadii baa ku gabaabsi yahay aynu laga faa'iidaysan karo. waxaa laynaga hadaa 3 bilyan oo dhow oo kalluuna sanadkii. budgetkaynu u baahanayna hadda waa 400 milyan. 1 bilyan haddii budgetkeena la gaadhsiiyo 2 bilyan baa reserve inoo noqonaya. dalka caynkaas mucaawano in la siiyo xaq ma aha oo la yidhaahdo wax yar baa laydiin soo tuuraya, marka laynaga xado 3 bilyan laynaga qaatee laynaga xado. waxaynu u baahannahay inaynu samaysano dawlad madax bannaan oo aan loo talinin, oo aan ajanabi korkooda isku dilin, oona carab iyo cajam korkeedna la isku dilay. waxaasna waa khayraadkaynu leenahay. inana weli 4.5 baynu fadhino iyo qabiil iyo maxay tahay aniga reer hebel iyo najifaa. marka waxaanu u baahannahay wax badan inaynu ka fiirsano oo dib u eegno oo aynu ka tashano oo aynu mustaqbalkeena iyo dadkeena meel gaadhsiino. waxaanaynu ku gaadhsiin karnaa haweenka oo dawladdii ka mid noqdo, meelo waaweyn gaadha. aniga sida ila tahay waxaa la sheegay 2019 sidaan maqlay 50,000 oo dhalinyaro jaamacadaha dhameeyey Soomaaliya oo dhan, oo 45% ay haween yihiin. dadkaasi waynu wada ognahay sanado shaqo may qabanin. injineeraha ku jira, petroleum engineers ka yimid dabaddaa jira, waxaa jira kuwii beeraha samayn lahaa, waxaa ku jira kuwii xoolaha. dhaqaalaheena ugu weyni waa xoolaha, kalluunka iyo beeraha. maanta kalluunkii waxba kama helo, 3% kama helo, waxa kale waa la boobaa. beeraheeni waaba la sumeeyeyba oo inta badanba dalagii suntii waxa lagu siidkii baa la bedelay. xoolaheenu ma helaan dhaqaalihii waa la dhaqaalayn jiray waagii hore, ma helaan daryeelkii. cid adduunka aynu u baahanay ma jiro, innagaa bixin lahayn. anigu waxaan xasuustaa arrimaha dibadda ka shaqayn jiray waagii aanu joognay intaan dawladdii gacan ku dhaceen. waxaan xasuustaa 2 safaaradood baanu lacag siin jirnay oo sida hadda waxa safaaradaheena loo masruufo aanu wax siin jirnay. marka waxaynu u baahannahay habayn la habeeyo dhulkeena. ma aha mawduuc dhaqaale inaan ka hadlay maanta, laakiin haweenku roolkay ciyaari karaan baan ka hadlayaa. 4 milyan maxay ahayd budgetkeena 150 ku dhawaad baa cashuurta laga qaado Muqdisho ha u badnaato, ama inta badan ugu badanba Muqdisho laga qaadaaye. inta kale waa la kabaa, waa laynagu kabaa. baryo uma baahnin. waxaynu u baahannahay inaan shaqayno oo waxayna la soo baxno. waxaan kusoo gabagabeynayaa doorashada soo socota waa inayna door weyn ay haweenku ka qaataan.
waa inay dumar badani soo baxaan. waxa kaliya ku soo bixi karaana waa inagoo hadda ku dagaalana inaan 4.5 lagu galin doorashada, in xisbiya lagu galo. xisbiyadana dumarku iyagaa u badan waddanka ay u codeeyaan, kay rabaan u codeeyaan laakiin dumar galaan xisbiyadii. waxa aan haddii ay gabadhi dawlad kala soo qaadaday maanta dawlad goboleedka iyadaa gabadhi joogi lahayd waxa ka dhacayaa ma dhaceen. waxaan hubaa inay wax badan ka qaban kari lahayd muranka iyo ismaandhaafka. dardaarankayga u dambeeya waxa weeye aan ka dagaalano doorasho dadban, waayo fursadaha ay haweenku lahaan lahaayeen waxaa ka hor istaagi doonta doorasho dadban. siyaasadda waxa weeye in la galo, waa in lagu dhiirado. dumarka inta badan maxay hadda aad baa loo soo fahmay, laakiin haddii haweeney ay rabto inay meel gaadho way gaari kartaa. aniga example ahaan haddaan idin siiyo, hadda 10 xisbi baan madax u ahay oo wada rag ah, ayagaana ay doortay. haddaad adigu qalbiga iyo niyadda hayso meel kasta waad gaari kartaa. example kalaan idinku darayo, waa taa wasiirka arrimaha dibadda noqday. jaamacadda carabta 2 jeer shirar ay leedaan tegay. dadku waxay u haystaan carabta dumarka inay yasaan iyo inay maaragtay xidhan. wallaahi markaan soo galo waa la wada istaagi jiray, bas gabadha keliyaan ahaa. marka waxa weeye raggu ama carab ha noqdo, muslim ha noqdo, soomaali ha noqdo, hadday ku arkaan inaad maxay ahayd dadaalayso way kaa leexanayaan. marka inaan inagu dib isu dhigno maaha. qof waliba ha ku dadaalo inuu xisbi galo, inaan diidno 4.5 xisbiyadii ku biirno. sidaasaan baarlamaanka number weyn ku tegi doonaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.